وقابريايا ووطني وقلكادايا ووطني وقابريايا ووطني وقلكادايا ووطني كوحقبا كرايا ووطني madashan quruxda badan ee deegaankeedii iyo dhaqankeennii tuulahan dumarka deegaanka dhammaan aad baan u salaamayaa waxaa mahadle ilaahay isu keenay cod iyo cag iyo isku keen qoray aad baan ugu mahad celinayaa mar labaad waxaan mahad celinayaa bil iyo goob waxa la yiri magac bilaash uma baxo aad baan u salaamayaa dhalinyarada faraha badan leh bil iyo goob ee dhiirigelinta iyo karaamada iyo hadafka ilaa boqorka waa salaamaya waxa kale oo idin sheegayaa inaynu codaynayno maxay tale Sucaad Ibrahim Cabdi inagoo haween iyo rag iyo dumarba ah inaynu codayno dumarow inaga ragino dan maaha rag wayna soo aragno muraayada inaga dalacdeen dumarkaynu triibkan eegaynaa dumarku ay soo iiliyo anigu waxaan ahay anu meehi biliyo goob inaan baha dhamalabaanay siiba waxaan ahay inaan reer xasan ciise qadan aadan cadaa la yidhaa waxaan aad u taageersanay mowqifka Sucaad inuu ilaahay soo saaro تاني وانت واحد الله هاي انا عدك سينو هدي الله يراهدو ها سو بخدو الى هيدا مكيس قول يا غبني ما يدلان هاي قول يا غبنو دلان هاي سلعنا waxaan leeyahay habar yar waa soo bixi hanow taxyaatiga hay laawin hadii Allah yiraahdo kala rag بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هرتا مركا هوري قاا waxaan u dhiganay inaan noo ducaysaan marka labaadna waxaan u dhignay inta aad artiga u tihiin ee idin timi ee la qeyrta idin ku timi reer la qeyreed waxaan leeyahay intaas inaa waxaan maqli jiray reer inad qofkaasi goob u dhigtay go'aasay intaas idin dhigatay codka ma ugu rideen عدك موجودين والله بالله عليك عيب كنا قن إن قايدين دي قطاقة ديسان أو عبتيوتين سوى نكسم بانو شعر هاي نصبت أنا وانو شعر هاي تدخلوا نصبت ولا كبها معها وحنقول أفولي با إنتي وحنقول سوي وحقرنا يو إنه نصب كيسة كده هذا معها markaa waanu soo dhawaynaynaa inantaanu soo dhawaynaynaa boqoraabi baanu soo dhawaynaynaa waanu jecelay waana nuugu ridaynaa xusbiga waanu soo dhawaynaynaa la socdo iyo boqoraabi ba anigu maalintii halka dhagaxa la dhigay ee inamada yareer reer ku faanayeen waan taagnaa dhagaxina sidii uu yaala wixii nool adduunyada waa la isku soo noqon baan maalintii ku yiri annaga wuxuu qabanayna meedan waxa weeyaan imaka Sucaad inan baa dhashay anigu waxaan u malaynayaa marka Sucaad iyo aniga aan noqdo de maanta intaas soo qof marka u soo baxay Sucaad aniga reer Cabdi Ciise dhalay iyana reer Gabtoon dhamal baa dhalay laba hablood reer Maraadana dhalay waxaan u malaynayaa codka haday Sucaad ka hesho halka reer abtiye degan yihiin inay deegaba maxay gabadhiga la sareysan noqonayso oo kala abti wanaagsanaaneeyo oo abtiyasheed sandalada noqonaya aad iyo aad baan idin salaamayaa aad baan idinka mahad celinayaa waqtiga badan ee aan siiseen aad iyo aad baan idinka mahad celinayaa waxa aan leeyahay ilaahay haydi sharfo soo dhaweynta wanaagsan iyo waqtiga aan siiseen iyadoo loo caraabi lahaa xoolihii oo ay xilligii guga tahay oo runtii shaanisku iska yaryahay waa idinka mahad celinaynaa aad iyo aad intaa markaan ka gudbo waxaan idiin sheegayaa oo aan doonayaa inaanu idiin sheegno oo aanu la soconnay waxa weeye waxaanu wadnay oo aanu daadihinaynay inantaa aynu abtiga u nahay ee Sucaad Ibrahim Cabdi waa tii la galay doorashada waxaa la sameeyey
laba inan oo ardaaga waataynu soo sharaxnay labadii inan ee ardaaga ahaa waxay iska tageen meel aynaan inagu shaqo ku lahayn meel aynaan waxba aynaan wadaagin meel aan waxba inoo qabanin meel aynaan doonahayn meel aanay dantiinnu ku jirin ayay inamadii iyo in yaroo dan leh ay la tageen markii aanu kala tashannay ee aanu nidhi ardaaga dan uma aha halkaasi idinkana dan idiima aha ardaaga waxa dan oo ah labadaa xisbi xisbiga waddani iyo xisbiga ucid labadaa xisbi kaa doona